بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وخيارته هودا نقل الصعطاي كسو دواد برنامج كنا ونقض ديارني سنة جورة السجالية لبعضناد كسو وريكتي markii jamhuuriyadda Soomaaliland ay dib loo soo noqotay qarannimadeedii sanadii 1991 bishii May 18 oo si weyn loogu xusay qasriga madaxtooyada Soomaaliland waxaana madashan ka soo qayb galay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi shirgudoonka golayaasha guurtida iyo wakiilada gudoomiyaha maxkamadda sare hoggaanka xisbiyada siyaasadda ee Soomaaliland xubno kamida golaha wasiirada taliyaasha ciidamada qalabka sida waxaana xusid mudan in xuska maalinta qarannimada Soomaaliland ee 18 May ee sanada 2020 si ka duwan sidii loo xusi jiray 18 sanadood ee ka horeeyay loo xusay maadaama uu dunida ka jiro xanuun dunida oo dhan dhibaato ba'an u geystay oo ah coronavirus COVID-19 qaranka Soomaaliland oo ka taxadiraya isku imaanshaha bulshada ayaa la xusay in qof kasta maanta qarannimada Soomaaliland ee 18 May ee sanadkan uu si gooniyo gurigiisa ugu xuso maadaama la ilaalinayo caafimaadka bulshada madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ayaa khudbad dheer oo dhinacyo badan taabanaysa oo ku tacalluqda horumarada ay dawladdiisu ka sameysay arrimaha dhaqaalaha amniga iyo walibana adeegyada arrimaha bulshada halka ka jeediyay waxaanu madaxweynuhu ku nuuxnuuxsaday sida xukuumaddiisu ay uga gaashaamantay xanuunka COVID-19 tallaabooyinka ay xukuumaddu qaaday ee xanuunkan lagaga gaashaamanayo waxaanu carabka ku dhuftay deeq kala duwan oo muwaadiniinta reer Soomaaliland ee hantiilayaasha ahi ay xanuunkan ku taageereen in wax lagaga qabto si bulshada looga badbaadiyo dhibaatada uu xanuunkan u geystay naf ahaan iyo dhaqaale ahaan barnaamijkeennan ayaynu ku eegaynaa habkii ay u dhacday munaasabadda sanad gurada 29aad ee maalinta qarannimada Soomaaliland ee 18 May madaxweyne waxa salaantaada u diyaara cutubyo ka tirsan ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland munaasabadda 18 May awgeed madaxweyne ku soo dhawow ilaahay waa mahad leh bisha Ramadaan barakaysan ilaahay khayrkeeda hayna siiyo dambi dhaaf iyo maqfirada hayna siiyo wixii islaam ay naga horeeyay dhinsan Allahu naxariisto inteena nool Allah inooga daba naxariisto ilaahay waxaanu ka baryaynaa aafooyinka cudurka jira adduunka saameeyay inaga dhibta weyn nagu haya inuu ilaahay masiibadiisa inaga dul qaado in ilaahay cudurka oo sida ay dhalinyaradu u sheegaan safar nooga dhiga safar maaha waa aafe in ilaahay safar nooga dhigo oo ilaahay noo fudaydiyo
waxaan ilaahay ka baryaynaa khayr oo dhan ilaahay waxaanu ka magan galay balaayo oo dhan duca kadib walaalayaal maanta waa bishii May waa maalintii qarannimada waxaan hambalyo u dirayaa dhammaan shacbiga Somaliland meel uu joogaba gudaha iyo dibadba waxaan hambalyo u dirayaa dhammaan golayaasha qaranka ee Somaliland axsaabta qaranka ciidamada qalabka sida ee kala duwan dhammaantood meel ay joogaanba waxgaradka culimada baayac mushtarka rag iyo dumarba dadweynaha Somaliland iyo madax raqameedkooda dhammaantood waxaan ilaahay uga baryaa caafimaad qab iyo inaynu sanad guurada teeda kale ku gaadhno bashbash iyo barwaaq 18 May waa maalintii aynu xaqiijinay qarannimada Somaliland waa maalintii inagoo isku duuban oo aan cidna inaga maqnayn oo gacmaha haysanna ku heshiinay inaynu qaranka dhisno shirkii magaalada Burco 1991 go'aankii ka soo baxay in aynu xorriyadeennii kala soo noqono aynu kala baxnay qarannimadeennii midowgii aynu ku hongownay 1960 June iyo July waxaynu maanta xusaynaa 29 sannadood oo aynu wada jir wax wada qabsi dib u dhis dimuqraadiyad isku tanaasul iyo kala dambayn ku maamulanay dalkeena marxalad kastoo adagna aynu kaga soo gudubnay innaga oo gacmaha ishaysanna waana arrin caalamku inagu majiirto lagana baran karo casharo ku saabsan guulaha aynu ku gaadhnay isku kalsoonida iyo talada innaga ka soo goday dadkeena ee aan dibaddeena kaga iman heerka dowladnimo aynu ku gaadhnay walaalayaal markii lagu go'aamiyey Burco qarannimada Somaliland 1991 May waxaa lagu ansixiyey afti dadweyne markii dastuurka la ansixinayay in dastuurka iyo qarannimada madaxa bannaan ay tahay lama taabtaan 2001 bishii May buraanka iyo sawaxanka siyaasadeed ee ku saabsan wada hadallada Somaliland iyo Soomaaliya ee laga wado warbaahinta waxay muujinayaan bisayl la'aan siyaasadeed iyo waay aragnimo la'aan iyo garasho gaabnida dadka maanta maamula xamar ee ku hadaaqa maalin walba soo dhajiyo boor ah Somaliland waa gobol ka mid ah Soomaaliya aad iyo aad bay wax loola yaabo tahay maan gaabnimada dadka 30 sano og inaynu laba dawladood oo mid waliba gaarkeeda wax u dhisatay yahay haddana maalin walba ku soo sawira calan oo odhanaya Hargeysa iyo Somaliland iyo Burcaan wax u direynaa iyo Boorame taa waan ka hadli doonaa oo hadalladii hawsheeda waxaan saleeyahay taasi ma aha mid arrin lagu geli karo ee waa bulaan suuq iyo war suuqa socda walaal xarunkan adduunka saameeyey ee COVID-19 dalkeena aad buu u fidaya waana caadadiisa oo marka hore lama dareemo inta aanu fidin marka uu dadka gaara dadka horeeya xanuunka soo dhacaa boorinta ayuu si xoog dib u kacaa haddana hoos u dhacaa marka waxaad moodaa maanta inuu xoog halkii ugu sarreysay marayo 100 iyo dheeraad baa laga helay waliba waxaan wari raadinaynaa inaynu helo ay tahay mashiinada lagu baaro xanuunkan oo aynu helno magaalooyinka waaweyn Boorame Burco Berbera Ergaabo Laascaanood ugu yaraan hawshoodii waa lagu jiraa kala go'a diyaaradaha iyo haddii la yidhaahdo adduunyada wixii la soo aan la isu gudbayn awgeed ayay adag tahay markii la dalbadaba inuu raago waxaan u mahadnaqaynaa oo mahadnaq ballaaran sheedinayaa guddida loo xil saaray hawsha ka hortagga fayraska ee maamulkeeda oo shaqo wacan qabtay madaxweyne ku hogaaminayay waxaan aad ugu mahadnaqayaa maalqabeenka Somaliland oo intoodii baday si degdeg ah si wax ku ool uga soo jawaabtay oo shalay iyo raato labada shirkadood waaweyn Dahabshiil iyo Talas lagu dambeeyeen oo ballanqaadka intay furiyeen ka dalbaday in la soo dhiso la soo sameeyo meelaha lagu sameeyo Turkey China
qalabka lagu baaro dadka laakiin waqtiba inaga qaadanaysa xanuunkana wuxuu ina baray cashar baynu ka qaadanay haddaynu Somaliland nahay haddii aynu isku tashano inaynu adduun iyo awoodba u leenahay inaynu dalkeena wax ka qaban karno horumarin karno kala dagaalami karno cadow cudurro kala dagaalami karno inaga oon gacmaha hoorsan hawshaa ku socotay maanta labada bilood ee wadada hawshaa badankeeda 80% waxay ahayd dhaqaale Somaliland iska urursay dawlad ganacsato qof wax ku deeqa qof xoogiisa ku deeqa qof amarka qaato oo u adkaysta dhibaatada ka soo gaadhay isla dhaqaale u bixiyay qofka ganacsiga jooji ama shaqadii uu qabanayay joojiyay ee mushaahar qaadanay dee waa ka ugu deeq badan dalkiisa ugu deeqa wixii uu hayay ilaa wuxuu hayay mushaahar siyaaray dawlad ahaan xanuunkan talaabooyin dhowr ayaa laga qaado hore loo sheegay oo ogtihiin waxa la asaasay gudida waxa la xidhay dhammaan goobihii waxbarashada si loo yareeyo imaatinka ardayda waxa si kumeel gaar ah loo xidhay xuduudaha dalka wixii laga maarmaan mooyaane waxa heegan la geliyay ciidamadii qalabka siday oo dhan meel ay joogaanba si ay cadowgana uga diyaar garoobaan dalka haddii dhibaatadu sii balaartana wax uga qabtaan waxa loo sameeyay goobo lagu kala tilmaamayay dhammaan socotada ka soo galaysa xuduudada muddo 14 cisho meel kasta ka soo galeen waxa hoos loo dhimay qiimaha cashuureed ee bisha Ramadaan ee raashinka daruuriga ah boqolkiiba 20 dawladdu waxay abuurtay sanduuqa la dagaalanka COVID-19 oo ay ka codsatay dadkuna inuu soo taageero alxamdulillah maanta lacagta la hubay ku soo gaadhay waa ilaa 7 milyan iyo dheeraad dawladdu waxay abuurtay sanduuq la yiraahdo miskiin kalkaal oo lagu ururinayo qaaraan lagu taakuleeyo dadkeena baahan ee jilicsan ee qaadamada gahay ee suuqi laga xidhay kaana dawladdu qaaraankii horreeyay dhigtaal milyan buu ahaa ilaa 2 milyan oo kale wax soo soo maanta dadweynaha waana maqlayseen gudida ka hortaga oo daraata 650 qoys u qaybinaysay raashin oo ugu badan dadkii ay dhibaatadu gaaraysay dawladdu waxay fartay sanduuqa lagu talagalay in lagu taakuleeyo ganacsada yaryar ee uu saameeyay xarunkan ay COVID-19 oo qorshaheedii iyadan lagu jiro waxa kale oo xukuumaddu ka soo iibisay beerleyda labadii sano ee roobka wanaagsan daay wixii ay beereen ee kayda hayeen in laga soo iibiyo ay dawladdu ka soo iibiso oo lagu daro gargaar dadka la siinayo oo aan laga sugin qamadii laga keenay meel aynaan garanayn waqtiga ay imanayso wax kasta oo la dadaalay walaal xanuunku sii fiday maalin walbana waxa arkaynaa hebel oo dhintay waana aafo adduunka dhan maraysa waxaan u baahnay inaynu sii xoojino la dagaalankiisa oo ah inaynu qaadano awaamirta dhakhtarada waxaynu u baahannahay inaynu ismaqalno waxaynu u baahannahay inaynu ku dadaalno inaynu kala fogaano intii suurtagal maanta ku dheeraan maayo hawlaha xukuumaddu sanadkan ay soo qabatay waayo bishii dhaweyto warigii February ka akhriyay gobolada gole ee wixii la qabtay iyo qorshe uu sheegay si guud mar haddaan taataabto amniga qaranka difaaca qaranka iyo nabadgelyada dalku waa saldhigga dawlad kasta oo jirta caalamka dawladdu waxay haybad iyo tixgelin leedahay awoodeeda ciidan iyo xuduudeeda dhaqaale ilaahay mahadi 30 sano oo la yiraahdo ma ictiraafin oo nukeerna isku tashanay 30 kaba si nabadgelyo iyo aamina ayaan u soconaa 30 ka sano cadawga Soomaaliland waa badnaa siriya caad baa u lahaa bareed iyo warwareeg iyo dhumasho iyo sorxgal buu isku daayay ilaahay mahadi shacabkooda isku duuban iyo ciidamada qalabka sida kala duwan iyo dadkeena qarnimada ilaashanaya iyo madaxdooda oo boqolkiiba boqol u soo jeeda qarnimada ilaalinteeda waxaan ku gaadhay 30 sano oo nabadgelyo gudaheena ah cadow dibadooda inay soo weerareen ay warigii fooda soo galin dalkeena waxa la xoojiyay tayeenta ciidamada dhinaca qalabka tababarka moralka iyo cududooda waa markii ugu horeysay ee tababar leeyr sarkaal dalkan gudihiisa lagu qabto oo ay ka soo baxayaan saraakiil ciidan oo ay ku jiraan hablo waxa ciidamada amniga guduhu waxay hoos u dhigeen boqolkiiba 9 dambiyada ka dhaca magaalooyinka waaweyn iyo dalka guud ahaan waxa iskaashi iyo amni lala sameeyay dalalka dariska ah si loo xakameeyo dambiyada xuduudaha ka gudba waxa la dhameystiray isbitaalka ciidamada qalabka sida oo furan hadda la bilaabay oo adeeg hufan oo caafimaadkii doona ciidamada cadawga jamhuuriyadda Soomaaliyeed waa badan yahay
hase yeeshee waxa uu muusgooyay shacbigiisa iyo ciidamadiisa isku duuban dhaqaalaha dalka hore uga hadlay waa badan yahay marka soo koobo dhaqaalaha dalku 15% sanadkan kordhabay ahayd waxa ilaa 10 waxa hoos u dhac badan ka imanaya cudurkan covid 19 qorshihii dib miisaanada ugu sameyn lahaa ku talagalana waa lagu jiraa inta uu qaadanaya garan mayno heerka uu gaaro garan mayno waxay nagu qasaba inuu dib u eegno miisaaniyadeena iyo qorshayaasheena priority-goodi halkii koobaad markii hore ay noo ahaayeen dhowr iyo 20 mashruuc oo ku kacay lacag ku dhow 20 milyan oo 6 bilood hore la sii daayay ahayd way hakadeen waayo waxa loo leexday dhinaca cudurkan covid 19 walaalayaal waxaanu guula gaadhnay waxa dalka soo socday haddana cid waliba dhaliisheeda waa leedahay dhaliisha Soomaaliland ugu weyn ee dhaqaalaheena iyo nabadgelyada noo dhibtay waxa weeye isku dhaca deegaamaysan ee beelaha wadaga deegaamada dhulkeenu way naga badan yahay dadkeenu wuu yahay dhulkeenu wuu yahay haddana waxa dhacda maalin walba beela isugu dhaca dhul la isku qabsado oo ah beer iyo barkad iyo wax la mid waxa naga dhintay boqolaal qof loo sano u dambeeyay waxa ku burburay hanti badan dad badan baa ku barakacay hadaa dagaalada raadiso oo si walba oo xadhood baadhana waxaan sagaar ka biirsan baan dadka ku leeyahay oo dadka ku barakacay oo dhaqaaleena ku burburin waxyaalaha dhaqaaleena culayska badan ku haya waxa kamid ah isku dhaca beeraha iyo hawlgaladooda labadii sanadood u dambeeyay waxa la yaab leh inaga oo dal soo koraya oo horumar doonayo waxa inaga baxay dagaal beelada loo gurmanayo ee kolba barkad iyo beer iyo waxaan ka weyn la isku dilaayo 9 milyan oo dollar 9 milyan oo dollar baa inaga baxay dhexdhexaadin iyo u gurmad iyo kala qabashada beeraha labada sano u dambeeyay imse iskuul bay noo dhisnahay caafimaad baynu u baahan biyaynu u baahan wax alliya waxa la isku dilayna garamis markuu dadku la laayo ee la barakaco ee la burbura la oraya walaalayaal ka heshiin oo xal dhalaa ka noqon maxay isku dilay maxay waxaan soo jeedinayaa dhammaan wax garadka media mutacallimiin sheekh shariif in dadka laga waanay dhulku waa ina deeqaayay inaan maalin walba ku dhamaan oo inaan isku gurman waxaan sagaar ka biirsan gacan baa la isku dilay barkada ugu leexday waxaan ugu gudbayaa kaabayaasha dhaqaalaha waa qorshihii aynu hore u soconay aynu ku soconay oo wax laga bedeli doono sanadkan waxa u badnaa in ceelal badan la qodo in jidadka dayactirkooda la badiyo laba taabo wadadii burco iyo ceere gaaba iyo dawaaseedii tan kooridoorka oo ay dhisayeen qolada carabta iyo qolada ingiriiska oo iyagu naga caawiyay inta leexashada ah iyagana maynaan taaban laakiin qorshayaashii wadooyinka wax badan waxa hakin doona ama wax ka bedeli doona xanuunkan covid 19 waxbarashada iyo caafimaadka oo labada ugu muhiimsan labaduba waxa ku dhacay culays miisaaniyadoodii horumarineed ee macallin lahayd ee dugsi dhis lahayd waxa ku dhacday labadaba culays fara badan oo keenay cudurkan dhammaan xooggeeni arrimaha bulshada waxay u leexanayaan xooggoodii in lagu caawiyo wasaaradda caafimaadka oo ku jirta dagaal ay arrintu baaxad u leeyahay iskuuladii waa la xidhay cudurkana xidhay macallimiin badan oo private ah oo shaqada bishaarkooda ku ekaa inay ardayda waxa laga qaado ku socdaan waa xidhmay waa cusub kale soo kordhay oo iyadana dib u eegid miisaaniyada ay ugu jirayeen si loo xalin lahaa garsoorka waxaa soo dhibaatooyin jireen garsoorkeena ilaahay mahadi labadii sanado u dambeeyay markii la tiriyay kiisaskii soo galay 185 ayay maxkamaddu go'aan ka gaaray warina cabasho waa jirta maxkamaddu way dheer yihiin maxkamadaha dheer waxa ugu wacan dadka oo marka la weydiinayo marka dacwada la galayo iyagu soo qaldaay oo kolba marka go'aan la gaaraba wax cusub ka doonayo gaar ahaan kuwa dhaxalka oo kale oo dhamaadkood ku adkaaday ma aha inta badan dhaliisho ka timaada garsoorayaasha garsoor waxaan soo karaa waa bini aadmi laakiin dadaal qeyr caadi muujiyeen waxa la sameeyay maxkamadda wareegta oo fududeysay 60% dambiyadii laga soo qaadi jiray gobolada iyo degmooyinka ee la keeni jiray caasimadda maxkamadda ayaa 24 degmo ayay maxkamadda ka furay gobolada maxkamadda wareegtaana gobol degmo kasta way tagtaa iyadoo awoodda ilaa iyo maxkamadda gobol ah marana ku rafaac xataa raacaan
dowlad ahaan labada sano u dambeeyay waxa kor loo qaaday dakhliga ama mushaharka xaakimiinta iyo shaqaalahooda 50%. qorshahana waynu sii karnaa waayo qofka xaakimka ah wuxuu baahay daryeel badan tixgelin sharaf iyo amnigiisa bay xoojiyo taasina wadada hana insha Allah oo aynu gaari doono waxa soo dhac balaan ku yimid dacwadihii dhulka sababtoo ah dalka oo dhibaatadiisa arkay iyo maxkamadaha oo inta badan lagu xalliyo si sulxa iyagoo iska kaashanayaan dadweynaha ciidamada amniga maxkamadaha iyo culimada waxaan rajaynayaa dhibaatada dhulka hoos u sii dhacdo oo inuu hoos u dejino waxaanu sheegnay hawlaha ay qabtaan garsoorku waxay kor u qaadeen dakhliga ay soo xareyn jireen ilaa 150 waayo markay dacwada qaadaan baa waxa la socda kharashka dacwada beesha caalamka iyo dalalka ay dariska nahay Soomaaliland waxay xoojinaysaa xiriirka wanaagsan ee ay la leedahay dawladda ay jaarka yihiin iyo kuwa kale ee caalamka oo dhan xiriirkaasi waxa uu mar kasta ku salaysan yahay wax wada qabsi nabad jaar wanaag isqadarin iyo ka faa'iideysiga fursadaha dhaqaale iyo ganacsi ee la wadaagi karo wadamada beesha caalamka waxaan ugu baaqaynaa in ay tixgeliyaan isla markaana taageeraan go'aanka iyo ayaka tagshiga shacbiga Soomaaliland ee qaraarkiisa ay cod afti iyo tala iyo dawlad dhismo ku muujiyeen gargaarka caalamiga ah waxaan soo dhaweynaynaa gargaar kasta iyo deeq kasta oo beesha caalamku ku caawinayso Soomaaliland balse marna aqbali mayno gargaar deeq qaadaan dhaqaale iyo hawl soo marta Muqdisho iyo Soomaaliya waa ku celinaya cid kastoo nala soo xiriiraysa ama taageero ama talo ama dhaqaale waxaan u sheegaynaa Soomaaliya inaanu 60kii midownay 30 sano dagaal iyo rafaad ku wada jiray 30 sano kala maqnayn waxba aaniga dhaxan meel ka dhac ay tahay aan qaadan karin in la yiraahdo hawshaas xamar ku xidhano idinkii xamarka heshiiya ma kama heshiin xamar cadow waa aragnaa waa dawladda qura qaranimada Soomaaliland diidan ee ka bareersan ninka qaranimada diidan col baan sidaa darteed hay-adaha sibcada qurumaha ka dhaxaysa dawladaha waxaan u sheegaynaa annaga Soomaaliland oo dal gaar u taagan oo danta soo nahay cidina xiriirka waa wanaagsan tahay laakiin ma qaadan karno gafna oo aragnaa xamar baa waxay ka dhaxayaan ka heshiis wada hadallada Soomaaliya Soomaaliland iyadoo oo go'aanka shacbiga Jamhuuriyadda Soomaaliland uu yahay madax banaanideedu muqaddas lama taabtaan ah sida dastuurku cadaynayo haddana casrigan aynu maanta joogno ilbaaxnimada adduunka iyo aqliga fayooba waxa ay isku raacsan yihiin wixii khilaafaada ee yimaada in lagu dhameeyo wada hadal si looga fogaado dhiig daata iyo colaado hor leh oo riiq dheeraada in indhaha lagu laaliyo ma aha haddii la doonayo in la wada hadlo ama cidina dhex gasho waxa kowka oo shardiya horta in la aqoonsay inay yihiin laba dal oo kala waxban wada hadlay ma waxba ka dhageysan mayno talan la gari mayno cid kasta oo uu yahay oo yiraahda Soomaali way dal waxa weeyaan dagaal ka dhex taagan yahay Soomaaliya dagaal ka dhex taagan yahay la dhex galo Soomaaliya Soomaaliland laba qaran oo qofkii ku dhex dhexaadinaya diyaar baan walaalada xamar nimanka xamar joogay aan isku Soomaaliyeedna walaalanahay hadday taa indhahoodu arkayaan waan wada hadlaynaa intay sareeyeen gobolada waqooyiga iyo magaalo Hiblaayo Saayeerna ay kolba calan diyaarad yar oo gaar leedahay soo sawirayaan heshiin meel wada hadlaynaa waxaana abuuraysaa colaad hor leh iyo caro hor leh soddonkii sanadood ee Soomaaliland iyo Soomaaliya ku mideysnaayeen dawladdii Somali Republic waxay dawladda 1960kii ilaa 1990kii wada salaam baa aad garanayo oo aad waxa uu qori jiray nation oo ku saxiix jiray mustaqbalade annagu ardayda aan akhrin jiray oo uu og yahay xogaan u yahay wixii ka jiray iyo tii ka dambeysay ee 1960kii ee la baxday Somali Democratic Republic ee 1990kii isku dar labada 30 sanadood waxay 30 sanadood inaga dhexdeena dagaal ka socday oo waxa hoos loo diro iyo waxa bareer loo diro iyo wax mudaharaad ku dhinta ay noohay
وحكت مركا صدقها إنه سرعة كتير لابد دجال بينه قال الدريسك لابد بس سومال لاند دجال كعوليس كيس كنا عير ريقدي دجال كيس 77 64 سومال لاند عوليس كنا عير كمان دعين حمر ياكتد عوليس كوينا لمشال حوار ميسارات نقالة عسوتال كهر جسني كتشوجي بتشوجي وحلية وحدورك إيران يا صدق يا أيي لما تو عسوتال كهر جسني تغيرين داوا يا عوليس يقدر كمان يديس يا عمتهم كريم تريد أوانتي فرت لا يشغليه يا كبرعو يا كبورني تواركم أدعي وحد يرجع على وحي ربيكه إنه يقول هنا الدجال بين وهاي دولة أكل الدنيا يا عولاد كذيت كا يطرح ماذا وحي مكبح كل يسأل بقول لكم يسأل ونقرأ كذا سنة صد السنة كذا أول وشغل صد السنة أول كلام مغني عقلي هبه والبا إنه ما ضير حمل شغل أي تي في كسر جاي مشروع على كفرين هرجيسة هاي والبا نودر روح على ظهرني يا حمال بلاوي هدي وحق لي هكذا شو عيد كسر أو مثال بدو هذا كديار بارون إياه أنا هدي تا مثال قوة هذا markay arintu sidaa tahay dadku markay isqabtaan marka hore waxa ku heshiiyay wada hadlay taa waa sheegay maxaa ku xiga ajanda lagu hadlay waa laga heshiiyay ma aqbali karo go'aan ah oo inamada xawrka ku hadlaan wixii aan kala tagahay kala go'ahaynba aynu ka wada hadal si cad oo dheer baan idinku sheegaya kala go'o mooye wax kala ku wada hadlayno وينو كلا قولوا وينو كلا تغني ما ولا لنا لما دو درس ما هان هدي كلا وحا ودان وهري دونتا أرنت لبعض لو كلا بيحكي راح وي محكمة عالمية وأرنتين أن توز بيسنو وأن عرب وحنا كوزا كوبيا ونراهي كبريا مانت وعذر كان إن دور صار إنه قاوة إنه سهل إنه خفيفيه مسيرة دي هي دبعتي waxaan ku baaqayaa 18 May Somaliland inaan loo baqanayn haday ciidan tahay iyo haday dhaqaale tahay inaan iswadi karno xanuun kale inuu muujiyo inta isku filaan waxa la yahay hay'aduhu la oranayo waxa la soo marinayaa Brussels waxa la soo marinayaa Nairobi waxa la keenayaa kan afarteena maalqabeen iyo dawladda iyo shicibkeena isku tashada oo qabtay oo maanta aan ku soconnaa haday si adkaasna wadi doonta kalsoonidaas aan ku qabanay Somaliland soo waxaan dadka ugu bishaareynayaa in ay dhowdahay guush oo huwa inaan dheerayn qarannimadeena iyo xoreynteena iyo madaxbannaanideena waa dhowdahay ha loo dhabar adeego in ka badan baynu ka soo gudubnay meelan ka wareerina ma joogno inamada xawar joogana fariintaas aan dirayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa gabagabadii munaasabadda lagu xuseeyay sanad gurida 29aad ee ka soo wareegtay markii Soomaaliland dib loo soo noqotay madaxbannaanideeda ee 18 May kadib biladgeesiyo guddoonsiyay 12 sarkaal oo ka tirsan ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland daawadayaal intaa waxaa ku eg barnaamijkii aanu ka diyaarinay sidii qasriga madaxtooyada Soomaaliland ay uga dhacday munaasabadda lagu xuseeyay maalinta qarannimada Soomaaliland ee 18 May